munaasabad si ballaaran loo soo agaasimay islamarkaana lagu weyneynayo dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa allaha yeelay islamarkaana ay kasoo qayb galeen culimadiin iyo shacabada ayaa ka dhacday magaalada Helsinki ee dalka Finland waxaana munaasabadan intii ay socotay culimadiinku uga hadleen taariikhda nabiyullah maxamed calayhi salaatu wasalaam ayadoo sidoo kalena culimadiinku ku soo qaateen muxaadarooyin kale oo muhiim u ahaa bulshada culimada ayaa sheegtay in ihtifaalka nabigu yahay mid in la qabtaa banaa islamarkaana xili walba in nabiga lagu saliyo oo alle umada u faray sidoo kalena dhalashadiisu ay u tahay umada islaamka mid weyn waxa kale oo culimadiinku ku soo qaateen muxaadarooyinkii ay jeediyeen tarbiyada awlaada iyo waliba xuquuqda labada isqabto ay sheegeen inay tahay in mar walba bulshadu ku baraarugsanaato hadaba sidaan ayuu u dhacay ihtifaalka nabiga calayhi salaatu wasalaam الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم مواضيع دي محاضروينك وحندين يا محاضروين هذه قيم ومواضيع ذا أي كم تاي ما أنت أنكبرنا إن شاء الله تعالى مركا وجوه الرئيس بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى وقال الله تعالى بنك أوجان أما أنت قال الله تعالى بنك أوجان شعيل كالنبي قال الله تعالى بنك أوجان قال رسول الله بنك أوجان صلى الله عليه وسلم أصحابتي أقوال كودي بنك أوجان إجماعي أمة الإسلام بنك أوجان أنت صدام بيدليل كده كعبيه هي نبي قال الله صلى يمر الدين اللي يري هبين دمان كوصلين كرنا أنت سكون نماذن أو سنين تكوصل كرنا سكون نماذن أو بيش الدمان بالله كرنا وحنا يديد يا إن مد وقصلينه يا إن جمع وقصلينه يا إن سنة كي بهالمرت كده اسمه سوق قصنا هل آيات حديث مسلك كلو ديد من المجرد ما دام حفلة سنوية أي تهاي سنة كي مرس كوني معه أنا أبداً تهاي بدن كأنه إن كسر سافرنا مالف فك waxaan u nimid waxa weey diinta inaan xoojino oo aan isgaarsiino waxa la gudbinahay waa fartiin macnaheedu tahay qof walba nabi wuxuu yiri liyuballighi shaahidu minkumul ghaiba qofka maanta joogay ha iga gaarsiiyo adinka idin kamid yihiin mid ka maqan uu nabigu sallallahu alayhi wasallam asaaska iyo qawaa'imta ay ku taagan tahay insha Allah ta'ala waxaan aaminsanahay إله سبحانه وتعالى كلجيس واحد أحد هل إله بان آمن سنه سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله السمد إله سو لم يلد ولم يولد إله سو أصغى آن لدلين آن أصغنا وحبر دلين ولم يكن له كفؤا أحد أدق من أوسنشرين iyo waxyaalaha lagu gaari karo iyo mawcidada wacdiga yaani gabadha iyo wiilkaaga inta u yeerto ama cunuga ardadaada inta u yeerto waxaad oga sheekaysaa siirada rasuulka kaleey salaatu wasalaam salaf saalix siiradiisa oga sheekay waxaad oga sheekaysaa kana dhig su'aal iyo jawaab ka dhig waliga Allah markaad wax u sheegayso awlaada su'aal iyo jawaab ka dhig waliga waxaad tiraahdaa jannada miyaa janna rabin naarta miyaa ka baqaynin هاي ما يكون جواب مقدم يا هاي يكون هيا مركب وحيلها سو حكم تهاي وحيلها قفك تربية لجو جار أي كم تهاي وحن وحيل إسك حسوسين اسمه وحيل إسك حسوسين أو موضوع يكون جبينه يعني أخذ داود الوحى هولك كان كسر لما هذا احتفال النبي عليه الصلاة والسلام يدو يكسر قيب قالن علماء فربضان يولي بقى شعب كل دوام كواس وكل يمد مقالة يلسينك يولي بقى قبل هذا ذلك كان فيلان kulankan ayaa isagu waxa lagu soo bandhigeen culimadu mawaadiic aad u muhiim ah kuwaasi oo bulshada ka soo qayb gashay ee si wanaagsan ugu baraarugtay ihtifaalka nabiga ayaa sanad walba waxa laga dhigay ahdafaha caalamka iyadoo muslimiintu ay sanad walba isku baraarujiyaan isla markaasina lagu soo qaato siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam maxamed asiixaji kalsan TV Finland Helsinki